magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa lagu qabtay munaasabado lagu xuseeyey maalinta dadka naafada adduunka oo ku beegan 3 Diseembar 2021. munaasabadahan ayaa waxay ka dhaceen goobo kala duwan oo ku yaala dalka, waxaana ka soo qayb galay bulshada rayidka, ururada dadka naafada iyo sidoo kale dadka naafada qaybahooda kala duwan. dadka naafada oo isugu jira kuwa aragga iyo maqalka la ayaa waxay baaq u direen madaxda dowladda Soomaaliya ugu sarreysa oo ku aadan in ahmiyad gaar ah ay siiyaan dadka boqolkiiba intaas naafadaas kale lama taabtaan waa wule adiga naafa tahay wasaaradda xuquuqda dul qaadatay budgetkii naafada iyada gacanta ku haysato budgetkii haweenka gacanta ay ku haysataa adi naafada maxaa faa'iido marka already naafo plus naafo hore loo sii naafada budgetka ku leeyihiin ma laha isbitaal ma loogu sameeyo ma loogu dhiso waxbarasho ma lagu siiyo shaqo ma loogu abuuro wasaaradda maxay u qabanaysaa marka waxaan aad u codsan wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya golaha wadatashiga qaranka laftirkooda maamul goboleedyada in wasaaradda u gaara naafada inay u sameeyaan ka warqabaan maalinta ayaga yiraahdaan maaqo qofada ayaga habeysteen ay u yeertaan maanta cidna go'aanka haweenka in ay kala qaado wasaaradda haweenka iyo wasaaradda naafada islaama la qatalada qofku u qoran naafo in lagu kulmanayo la hosgeeyo wasaaradda haweenka wasaar rab waxaan ka codsanaynaa in uu naga wareejiyo wasaaraddaas naafana hay'adaha loo sameeyo madaxweynaheeni waa saxiix dowladeeni waa saxiix waa mataqaana waa meel maris war maxay noo anfacday waay afar madiidin ah loo sameystay wasaaradda oo xuquuq insaanka ayaa mataqaana afar madiidin u sameysatay ayadaas ayaa ku manfaacada naafana mataqaana furuurta looma saaro mana ka warqabto meel ay ku baabaysay meel kale waxaan rabnaa kaliya inaan wasaaradda anagoo ka dacwo ah waxaan u dacwoonaynaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiirkaas inuu na qaabilo arrintaa nagala fadhiisto waxaan qabnaa u sheegno mana jiro sharci qoran ee dhahaya dadka naafada waxay hoos tagaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka mana aha wax dastuur ku qoran sida awgeed haddii dadka naafada ay dhibaato badan ka sheegteen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ah wasaaraddii loo igmay inay u cadaalad fasho ilaaliso xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed maanta lagu aamini waayay xuquuqda dadka naafada ee la rabay in ahmiyadda koowaad la siiyo balan u codsanaynaa wasaaradda arrimaha bulshada iyo shaqada iyo shaqaalaha in loo wareejiyo dadka naafada maadaama wasaaraddan ay ku fashilantay marka koowaad hambalyo waxaan hambalyeynaa dhammaan naafooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka labaad haddayna naafada ku nool waddanka Soomaaliya wakiiladooda waxaan ka soo horjeednaa wasaaradda haweenka in la hoosgeeyo waxaan codsanaynaa wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha in la hoosgeeyo marka saddexaad waa inaan helnaa shaqaaleyn sida gobolka Banaadir madaxtooyada meel walba oo waddanka ka mid ah sida maamul goboleedyada waa inay shaqaaleeyaan naafada hay'ado waxaa jira bajeedyo ku soo qaata naafada waa inay dadka naafada ah shaqo siiyaan hay'adahaas midda afaraad deeq-bixiyaasha hay'adaha deeq-bixiyaasha waxa ay bixinayaan waa inay xaqiijiyaan deeqdaas inay naafo gaartay iyo in kale wasaaradaha deeqaha bixiyo kale sida waxaan hadda ka cabanaynaa doorashooyinka 275 xildhibaan nooguma jiro hal qof oo naafaan nooguma jiro ayadana waxaan ka nahay cabasho guddiga doorashooyinka waxaan ka codsanaynaa inay dadka naafada ku daraan 275 xildhibaan oo hal qof oo naafaa uu ku jiro waxaa soo haray qoondada haweenka kuma jiraan haween naafa oo lama qoondeynin in naafada lagu daro haweenka qaybay leeyihiin qaybta ay leeyihiin naafada waa ka mid waa in ay helaan qoondadaas hambalyo 3 Diseembar waa maalin aad noogu weyn codsigeennana waxaan jeclahay madaxdu inay ka soo jawaabi doonaan